wacan oo wanaagsan daawadayaal meel walba joogtaan iyo si walba aad noo daawanaysaan halkani waa dawladnimo TV waxaadna ku soo dhawaataan daawadayaal barnaamijka gaarka ah arrimaha Soomaaliya taariikhdu waxay ku beegan tahay 4 bisha saddexaad sanada 2021 qodobada ugu waaweyn ee aad ku maqli doontaan warkeena dawladnimada waxa ka mid ah رئيسul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya mudane Roble oo markii saddexaad la kulmay midowga musharaxiinta mucaaradka warbixin ayaan idinka haynaa qodobada kale aad ku daaban doontaan warkeenana waxa qayb ka ah gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Filish oo kulan qarsoodi ah la qaatay guddi ku howlan dhismaha maamul u yeesho gobolka Banaadir farmaajo oo diiday barnaamijka mucaaradka ee sabtida iyo shuruudo adag oo markaasi ku xiray qodobada kale aad warkeena ku daawan doontaan daawadayaal waxa ka mid ah go'aanka ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya ee Roble oo ka farxiyay mucaaradka kana diiday qorshihii uu maleegayay madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo waxa aad ku daawan doontaan madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dare oo isaguna maanta wajiga bax kala kulmay maxkamadda maamulka Puntland qodobadaas iyo qaar kale ayaa daawadayaal ku daawan doontaan u diyaar garooba qodobadaas iyo qaar kale oo faahfaahsan aan ku bilaabay daawadayaal ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Roble ayaa lagu wadaa in mar kale maanta uu la kulmo xubnaha midowga musharaxiinta mucaaradka sida weyn markaasi uga soo horjeeda dawladda waqtigeeda uu dhamaaday ee hogaaminayo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kulankan oo noqonayo kii saddexaad ayaa qorshuhu waxa uu yahay in saacadaha soo socda uu ka furmo gudaha magaalada Muqdisho sida inuu xaqiijiyeen ila wareed lagu kalsoonaan karo wararka qaar ayaa sheegaya in kulankan diiradda lagu saarayo waxyaabihii ka hirgalay heshiiska ay dhawaan gaareen labada dhinac si hore loogu sii ambaqaado wada hadalada sidoo kale kulanka dhaxmari doona ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya mudane Roble iyo midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa la filayaa in markaasi lagu soo qaado waxyaabaha ku soo koray baaritaankii dhacdadii 19 Febraayo ee sanadkan aynu ku guda jiro waxaa sidoo kale shirka inta uu socdo looga hadli doonaa abaabulka dibadbaxyada ay wadaan midowga mucaaradka ee sabtida la filayo in uu ka dhaco gudaha magaalada Muqdisho kaasi oo ay ogolaatay xukuumadda Farmaajo si kastaba maalmihii ugu dambeeyay ayaa waxa soconaya wada hadallo u dhaxeeya ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo midowga musharaxiinta mucaaradka kuwaas oo ay safgarad ku soo dhamaaday gudoomiyaha maamulka gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamuud Cumar Filish ayaa toddobaadkan xafiiskiisa ku qaabilay guddi siyaasiyiin ah oo ka socday beelaha Hawiye kuwaasi oo ka socday guddi kale oo ku howlan dhismaha in uu maamul yeesho gobolka Banaadir xoog hoos oo aan helnay ayaa waxa ay tibaaxayaan in gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Filish oo xubnahan kala hadlay hawsha ay wadaan iyagoona weydiiyay talooyin ku aadan dhismaha maamulkaasi sidoo kalena kala hadlay caqabadaha qaar ee ku horgudban dhismaha maamulkaasi si rasmi ah looma oga socdaalka xubnahan iyo waxa uu salka ku hayo hase yeeshee waxa la aaminsan yahay in kulankan dhaxmaray uu ahaa mid qarsoodi ah oo aysan waxba ka ogeen madaxda kale ee dawladda federaalka Soomaaliya gudoomiyaha hore gobolka Banaadir ahna duqi magaalada Muqdisho Taabit Cabdi Maxamed ayaa la aaminsan yahay in xilkiisa uu ku waayay abaabulka dhismaha maamul goboleed uu yeesho gobolka Banaadir laban oga waxa uu markaasi uu ku muteysan karo gudoomiyaha iminka xilkaasi haya mudane Cumar Maxamed Cumar Filish arrimaha bananbaxay hadii aan dib ugu laabto magaalada Muqdisho waxaana la isku khilaafsan yahay goobta uu ka dhici doono bananbaxa looga soo horjeedo madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo guddiga qabanqaabada bannaanbaxa ee dhinaca mucaaradka ee xubnaha xukuumadda ee uu horkacayo ra'iisul wasaaraha dawladda Soomaaliya mudane Roble ayaa markaasi ku kala aragti duwan markii kulan ay xalayto ku yeesheen hotel Dakaale ee magaalada Muqdisho shirkaasi ayaa lagu soo hadal qaaday in markaasi la bedelo goobta bannaanbaxa loo qorsheeyay oo ahayd fagaaraha daljirka Dahsoon dalabkaasi waxaa ku gacan saaray xubnaha midowga musharaxiinta mucaaradka oo mowqifkeedu ay ku adkaysteen madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa lagu eeday in uu isku dayo in uu marba dhinac u jeediyo isfahankii laga gaaray isla markaana si dadban u diidan yahay qabashada bannaanbaxa macada go'aanka ay qaadan doonaan midowga musharaxiinta mucaaradka oo dibadbaxyada u qorsheysan yahay 6 bishan oo ah maalinta sabtida inugu soo aadaan
qaybihii dambe ee wararkeena dowladnimo TV ayaan isla soo gaaray dhanka kalena xukuumadda Soomaaliya ayaa xaqiijisay in mucaaradka banaanbaxoodu ku qabsan doonaan fagaaraha daljirka Daasoon iyadoo markaasi la tixgelinayo heshiisyadii la wada gaaray xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyadoo tixgelinayso geedi socodka dimuqraadiyadda qabsoomidda doorashooyin qaran iyo ilaalinta heshiisyadii mucaaradka waxay markaasi u ogolaatay mucaaradka codsigooda in mudaharaadyadu ay ku qabsan karaan fagaaraha daljirka Daasoon ee magaalada Muqdisho bilowgii xukuumadda waxay soo jeedisay mucaaradka in ay mudaharaadyadooda ku qabsan karaan garoonka Engineering Stadium si loo xaqiijin karo habraaca xakamaynta COVID-19 ee waajibka ka saaran qof walba laakiin markii mucaaradka ay ku adkaysteen fagaaraha daljirka Daasoon xukuumaddu iyadoo tixgelinayso heshiisyadii la wada gaaray waa ay ogolaatay dalabka mucaaradka ugu dambeyn xukuumadda waxay fartay qabanqaabayaasha mudaharaadyada in ay dibadbaxyadaasi ku qabsan karaan goobta daljirka Daasoon iyagoona markaasi laga codsaday in ay ilaaliyaan nidaamka u yaalo wasaaradda caafimaadka ee la xiriira badqabka cudurka safmarka ee COVID-19 shir jaraa'id oo maanta ku qabtay magaalada Hargeysa ayuu ku shaaciyay inuu yahay murashaxa golaha wakiilada Somaliland inuu ka mid noqonayo afhayeenkii madaxtooyada Somaliland waxa uu sheegay Maxamuud Warsamo Jaamac in uu warqadda istiqaaladiisa u gudbiyay uuna la wadaagay qorshaha uu damacsan yahay madaxweynaha Somaliland Muuse Bixi Cabdi waxaan maanta idinku yeeray inaan idin la wadaago inaan ahay musharax u tartamaya doorashada golaha wakiilada dalka Jamhuuriyadda Somaliland ee qorshaysan 31 bisha shanaad 2021 way muddo kooban ka hadhay waxaan halkan ka cadeynayaa markii aan sameeyay la tashi ballaaran markii aan ku qancay maxsuulkii ka soo noqday la tashiga markii aan u meeldeeyay damacayga siyaasiga markii aan door biday inaan dadkayga gobolka Sanaag iyo shacabkayga magaalada Ceergaabo inaan ku metelo inaan ka mid noqdo musharaxiinta doorashada golaha wakiilada ka qayb gala dad badan ayaa u arka in laga soo saari doono oo uu guuleysan karo marka loo eego saaxiibtinimada dhow ee kala dhaxaysa Maxamuud Warsamo Jaamac maadaama waqti fog uu ahaa afhayeenka madaxtooyada Somaliland iyo waliba madaxweynaha maamulkaasi maanta marxaladda gobolka Sanaag maraysa waa meel aad u fiican wuxuu u baahan yahay in halka hore looga soo mariyo waxaan kalsooni buuxda ku qabaa shacabka gobolka Sanaag oo ah shacab u hiiliya oo hagarbaxa qofkooda han kale inay hareer istaagi doonaan siyaasadda looma soo galo in xil laga helo loomana soo galo in meel la iska fadhiyo laakiin siyaasaddu waxa weeyaan mowduuc ballaaran oo jihooyin badan leh haddii aan siyaasadda u soo galay inaan xil uun hayo oo aan meel fadhiyo xilka aan maanta joogo ayaan haysan lahaa oo joogi lahaa iyadaan cidina iga bedelin wuxuu u tartami doonaa mid ka mid ah kuraasta golaha wakiilada iyadoona qof walba oo xisbiga kulmiye ka tirsan uu guuleysto marka laga reebo dadka oo xisbiga diido waxa ugu dambeysay maalin ka hor markii la hor istaagay dhaqane oo ahaa gudoomiyihii guddiga doorashooyinka Somaliland oo golaha wakiilada isku soo sharaxay balse xisbiga kulmiye ay diideen in xisbigooda uu u tartamo arrintan ayaa hadalhayn badan ka dhexdhalisay Somaliland iyadoo siyaasaddu ay weli tahay mid heer dhexdhexaad ah dadkuna ay aad ish ugu hayaan golaha wakiilada ee soo bixi doona waxaan ahay in siyaasadda in badan ku soo jiray xeelka duwanna soo qabtay Soomaalidu waxay tiraahdaa nin aan ku furi doonin yaanu ku raray waxaan leeyahay reer Sanaag nin maanta imanayo oo cusub oo buugiisuna uu bilow yahay barta uu ka yimiyo barta uu ku socdaana ay isugu mid u tahay iyo nin maanta dareenkiina iyo duruuftiina og dawladihii kala dambeeyana ku soo jiray way idin kala duwan yihiin idinkuna way idin kala garanaysaan dadka guuleysan doona ee la hadal haya waxa kamid ah Xasan Dhuxul Laab Salaax oo xisbiga kulmiye ee talada haya isagu isku soo sharaxay wuxuuna suugaanyahankan hore loogu yaqaanay afmaalka hadda uu u xoobsiibtay dhinaca siyaasadda ugu dambeyn maxkamadda ciidamada qalabka sida ee maamulka Puntland ayaa 3 bilood oo xariga ku ritay wariye Kilwa Aadan Faarac taas oo ay ka bilaabanayso 28 December ee sanadkeeni soo dhaafnay 2020 oo ah maalintii la xiray iyadoo taasi laga tixraacayo ayaa waxa xukunka ugu harsan wariye 3 maalin oo kaliya waxaana hoolka maxkamadeyntiisa ku sugnaa eheladiisa wariyaal iyo sidoo kale hay'adaha xuquuq aadanaha ee Puntland qaabilsan maxkamaddu waxay sheegtay inaysan wax cadeyn ah ku haysanin wariyaha eedeymaha Kilwa loo soo jeeday oo ah in uu markaasi duubay sawir madaxweyne Deeni oo markaasi la jeexjeexayo
dhowaan madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa goob fagaaraha ka sheegay in wariye Kilwa uu ku xadgudbay qaynuunka u yaala Puntland maxkamadan la hor keeni doono balse maxkamadda ayaa iyadoo shalayto ku dhawaaqday in eedi loo haystay wariyaha uu yahay mid markaasi been abuura tani ayaa u muuqatay in awoodda sharciga ay maxkamadda adeegsatay kana dhaga furaysatay soo jeedinta in xukun adag oo ciqaab markaasi looga dhigay wariye Kilwa Aadan lagu rido taasi bedelkeedana maxkamadda ayaa tiri cadeen waan ku heli weynay waxa loo haysto saxafigaasi guud ahaan daabadayaal qodobkaasi ayaanu ku soo gabagabeynaa wararkii ugu dambeeyay arrimaha Soomaaliya oo aad kala socoteen Dowladnimo TV inta aan warkan kiis xigaan ku kulmi doonana waa bahda Dowladnimo TV oo idin leh sidaas wa salaamu calaykum wa rahmatullaahi ta'ala wa barakaatuh دولة المجود دا علي موجودين